taariikhdu maanta waxa weeyaan waa 3 July 2022 oo maanta ay tahay Axad iyo bari toolo ah Isniin programmada ka baxa postgraduate-ka Boorama campus intay yihiin ayaan insha Allah aan sheegi doonaa department waxa weeyaan waa 10 department 10ka department waxa weeyaan ardayda difaaci doonta tiradoodu waxay dhan tahay 85 ka arday ayaa waxa weeyaan shuruudihii looga baahnaa waxa weeyaan soo buuxiyay it means 85 ka arday ayaa difaacaya campuska Boorama oo waxa weeyaan 2 cisho ayay kala difaaci doonaan waa maanta bishu 3 tahay iyo bari toolay bishu 4 tahay ardaydaasi waxa weeyaan ama programmadaas waxa kamid ah waa 10 program programmadaas waxa weeyaan programka ugu horeeya waa public health wuxuu kala baxayaa waa 3 department ugu horeeya waxa weeyaan Master of Human Nutrition and Dietetics department labaadna waxa weeyaan Master of Epidemiology department ka saddexaad waxa weeyaan Master of Health Promotion and MBA da waxa weeyaan waa 2 program waa Master of Project Planning and Management iyo waxa weeyaan Master of Finance and Accounting department ka shanaad ama lixaad oo isaguna inuu noqon doona Master of Applied Statistics department ka toddobaad waxa weeyaan Master of Public International Law department ka sideedaad waxa weeyaan Master of Educational Management department ka sagaalaad wuxuu noqon doonaa hadoo la yiraahdo Master of Judiciary department ka ugu dambeeya waxa weeyaan Master of Construction Management oo ah kii engineering waxaan waxoogaa isku yaraday inaan ka yara faa'iideeyo waqtiga oo aan bal ka hadalna munaasabadan aynu u joogno ah munaasabad aynu ku soo gabagabeynayno research aynu waxoogaa waqti soo wadnay bal inaan ka yara hadlo waxoogaa muhiimadda ay leedahay uu researchku leeyahay researchku marka laga hadlayo dasaad ogsoontiinba oo maanta waxa tigin dad muddo badan ku soo dhex jiray waxa loo qaybiyaa waa 2 nooc mid waa mid kan ay yiraahdaan quantitative research-ka oo wuxuu ka hadlaa intee in leeg buu jiraa muxuu ahaa arintan ama dhibaatadan ay jirtaan midna waa qualitative research-ka oo wuxuu ka hadlaa shaygan miyuu jiraa hadduu jirana siduu jiraa marka inagu ka hadlayno iskuulkeena badanka waxa dhacday inaynu oo dareemay inaynu culayska saarnay quantitative research-ka laakiin qualitative research-ku aad buu muhiim u yahay gaar ahaan marka la eego inaga wadamadeenan waxa lagu og yahay wali uu yar yahay marka insha Allah imka mustaqbalkan soo socda waxaan isku dayi doonaa inaynu kor u qaadno qaybta quantitative research and qualitative research talabaad in aynu more ka dhigno oo discussion aan la sameeyno vice president-ka agenda and dejinay baa jira in more laga dhigo future kan soo socda in research-yadeenu noqdaan kuwa la daabaco oo ayna badanka noqon research intaynu diyaarino buugtii haad ahaan loo koobiyeeyo oo shelfiska jaamacadda la dhigo ay noqoto waxay community-guna ka faa'iideysto idinka magacyadiinuna ay kor u kacaan way maanta la isma weydiiyo adduunka digrigeed wadataa waa sax taa wali weydiini laakiin waxa ugu muhiimsan markaad postgraduate level aad timaado waxa la weydiin waxaad qortay baa aniga ii sheegaya muxuu ahaa level of knowledge kaaga maanta halkaas uu adduunku maraya marka waxaanu sameyn doonaa insha Allah taana qorshaha waynu ku jirnaa marka researchku waa shay imika dunida la isla og yahay muhiimadda uu leeyahay marka hadaynu ka hadalna niraano wax laga yaabaa inaynu maanta oo dhan aynu qaadato laakiin haddaan waxoogaa yar ka taabsado waxaan oran karaa researchku dunida maanta qolada ay researchkoodu ka sareeyo ayay ka awood badan tahay saameeyna kartaa controlina kartaa oo imka markaad eegto dunidan soo koraysa wax kale lagu ma saameeyo waxa lagu saameeyaa waxa la og yahay waxa ay yihiin waxyaabaha saameeya dhaqankooga waxa kor u qaadi kara waxa hoos u dhigi kara kadib maxay sameeyaan in wixii adiga hoos ku dhigayna kor loo la badiyo wixii adiga kor ku qaadi lahaana la hor istaago marka adigu aanad garanayn waxa tahay oo nin kala garanayo waxa adigu aad tahay si fudud buu ninkaasi ku maamulaya marka waxaan aaminsanahay ama dunida maanta ka jirta in research-ka hadii kor loo qaado oo aynu faahno wadankeena waxa ka socda
iyo waxa ka socda sida loo bedeli karo waxaan aaminsanaa inaan halkan kor uga soo kici karno dhibaatooyin fara badan baa maanta waddankeena ka jira dhibaatooyinka ka jira markaynu u fiirsano really waynu ka sheekaynaa laakiin researchku nooca ma oo waxa ila tahay iyo sidaan u arko iyo intaan dareensanahay ma waa inuu wixii noqdo aynu u bedelnaa more in si cilmiyeysan loo baaray problemkii la ogaaday haddana la baaray problemkii xalkiisa muxuu yahay kadibna la baaray problemkii sidee xalkan loogu dabaqaa markaan intaa inagu keenno wax laga yaabaa marka dambe in kale inaga daba qaadato oo ay hawshaa hagaajiso marka hadalkaan idinku dheereeyay waxaan xogaa ku soo gabagabeynayaa xogaa waxaad yar arkayseen in intii dambe aan xogaa yara kulaylinay hawsha kulaylintaa waxa aan leeyahay horta mid ahaan waad ku mahadsantihiin sidii fiicneed noola shaqayseen oo deadline-kii waad ku wada dadaasheen deadline-ku ama in sharci lagu dhaqmaayo muhiimad aad u weyn bay leedahay oo nolosha dhan ee aynu sheegaynaaba waxay ku salaysan tahay in lagu dadaalo inay noloshu predictable noqoto oo aad ogaan karto waxa aad imika samaynayso waxa kugu soo soconaya xaaladda sideed hadday noloshii noqoto la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan waa waxyaabaha dunidan muxuu ahaa la leeyahay waxoogaa dibba u dhacday dib u riday nin waxa jira aan aad u falowgareeyo oo ka ahaan jiray prime ministerkii hore Pakistan in Imran Khan la yidhaahdo waa nin Pakistan marka la eego waxyaabo fara badan ku soo kordhiyay nolosha Pakistan ninkaasi marka laga wareysanay la leeyahay dunidan soo koraysa maxaa keenay inay dunida kale ka dambayso hal shay buu ku soo konkuluud garay waxa halkan ina dhigay buu yiri sharciga ayaynaan ku dhaqmin buu qof walbaaba meeshuu joogo qofka sharciya laakiin waxa la qoray ma aha sharci watan inaga wuxuu yiri wadamadeena muxuu ahaa dibta u dhigtay waa imka qofka ku imanaya qofkii wuxuu rabaa inaad sharci u jabiso wuxuu ku arkayaa oo ku dareemayaa inaad adigu sharcigii tahay buu ku garanayaa inuu nahay sharcigii wax adiga iyo intan kaleba ka wada weyn inuu nahay no gaara oo isaguna uu meesha ku fadhiyo qofkan uu imanayaana uu meesha ku joogo marka taasna inaynu sharciga soo celinana waxaan aaminsanahay inay ka imanayso institutions muxuu aqoon waxbarashada oo dadku markay wax bartaan ay institutionadii wax soo saariyay halka in nidaamka laga adkeeyo nidaamkaasina uu ka dhaqaaqo marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin rajaynayaa defense wanaagsan waxaan idin odhanayaa in wixii macallimiinta inagu oran jireen oo ahayd defense kan aad jeedinayso buugan adiga cid kaaga aqoon badan ma jirto waxa marka hore aanu mahad celiyo macallimiinta inala jooga oon leeyahay aad baad u mahadsantihiin shaqo badan bay qabteen maamulka Cabdifataax isbedel weyn baa muuqda muddadii joogay inkastoo muddo kooban joogay wax badan baa isbedelay iyo shaqaalihiisaba shaqo adag bay qabteen marka halkan la joogo guuleystaha marka qofka uu guuleysanayo the indicators baa jira muujinaya inaad u socoto sida qofka dhimanayaba uu jirto xanuunku maxaa la yiraahdaa waa calaamadda dhimashada soo saas ma qofku markuu xanuunsado qofka guuleysanayana indicators marka marxaladan laga hadlayo aad helayso ama aad ku guuleysanayso digriigii labaad indicators baa jira semesterka koowaad intaas course baa laga rabaa ka labaadna intaas in leeg baa laga rabaa ka saddexaad waxa laga rabaa inaad proposalkii difaacdo ka afraad waa theesiska iyo courseska wixii u dambeeyay marka halka marayso waxay taas calaamad u tahay inaad guuleysatay hambalyaan ilaahay horta aad baan idinku hablayeynaya waa sidaas la sheegayo shalay baa hadalkayga waxa ku jiray kumanaan ka qalin jabinayay Haramaayo ayaa waxaan ku yiri we Africans especially Horn of Africa communities are very far behind of other communities in the world. From now on, you are expected to be part and parcel of those who are bringing change for their people. يعني أنتم ما إذا كانت الله إذا كنا حكوا صبي رسان وحويان تذكر الربا إن إثبت الكاي كينان وإدتك ذو كينان أدي أدمن ديسو دويننا. Thank you, our dear colleagues from different countries, Ethiopia, Kenya, Uganda,
Yes, we are really very happy and grateful to be with you here and to receive you here. We know that you are hard work, dedicated, loyal, and honest to this institution. Without you, we would have not arrived at this stage. Just if you want to look at the performance of the staff and students, just you can look at the end of each academic year, like this event. Thank you. You have been here for almost 2 years now. 2 years is coming to an end. And you're going to contribute to the knowledge bank. You have written books. Or you don't know that you have written books. You have written books and you have made 3 copies. So today is your chance to contribute to generating new knowledge. So feel relaxed, feel welcomed. From our side, we are ready to listen to you. And before I sit down, I just want you to clap for yourself because you have done a very, very, very wonderful job. Now that one is not nice. That's not an academic clap. We want the lightning one. Prepare your hands. Lightning, then you strike. Thank you very much. And with that mood, take it to the defense room. With that light mood, take it to defense room. Don't go to the defense room gloomy and waiting for questions. We don't have questions for you. We want to listen to you. Otherwise, thank you very much. So I want to wish you success. I want to encourage you. Don't fear. Put the fear aside. Put the anxiety aside. And then come. We are your parents here. Yes. So you don't expect your mother and father to harass you. You left the parents back home. So here we are the parents. So we are going to mold you. Whatever we are doing is to mold you to come out as the fit, employee that is needed in the society. Because from here, you're going to look for jobs. Some of you already have jobs. And you're going to perform wherever you're going to perform. So, and whatever you're going to do there, you're going to represent us. By saying us, not the supervisors, not the dean, not the vice president, but Amud University. So I don't want to say a lot of things. Thank you very much for reaching this far. We thank Allah for His grace, because if it's not Him, all of us might not have been here. So we thank Him for His grace, for enabling us to be here. You did your part, we played our part. So I wish you success. Be calm. It's going to be a friendly examination. Thank you very much. laba ujeedaan u imitay labada ujeedo waxay ahayd kow inaan research ka barto iyo cilmiga nutrition kana inaan bartay ahayd labadiina maanta waan bartay all of you inaad ila wada meeting baan yaan rajaynayaa midda kale ee aan ku soo gabagabeynaya waxa weeye Dr. Miriam waxay oran jirtay you have to what you are, you become what you are bi ku celcelin jirtay, because you are master student waa ka muuqato. Master student yadii ka muuqan wada meel xun baad fadhiisan doontaa. meel xun baad fadhiisan doontaa ma aqoontiyaad ku shaqatay wada qasaare noqonaysa lacag badanna way naga baxday. Marka you have to reflect what you are. Inta ma ku soo gabagabeynaya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.